cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteelko ay weheliyaan xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda iyo mas'uuliyiinta degmada gacan libaax oo maayarku uu kormeer ku tagay ayaa munaasabad lagu qabtay degmadaas lagu soo bandhigay waxqabadka muuqda ee maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay ka hirgeliyeen muddadii ay xilka hayeen waxaana ka soo qayb galay xubno kala duwan oo ka kala socda dawladda hoose maamulka degmada iyo dadka raayidka ee xaafadda ku dhaqan iyo guddida horumarinta degmada gacan libaax maayarka caasimadda Hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid solteelko ayaa ka warramay mashaariicda ay dawladda hoose ka hirgelisay guud ahaanba caasimadda iyo gaar ahaan kuwa degmada gacan libaax maanta uu kormeerka ku marayo isagoo sheegay inuu diyaar u yahay in mashaariic noocan ka badan uu ka hirgeliyo degmadan inta uu xilka hayo حافظا مكان جاهل سوق هذا جعلنا حافظا مكان جونها سوق هذا وكل ستة بقولها قال ما أنت بقول كذا والله هاي تعشوط بالسن أنت أصلا شغالة ولا قصدت ودون ودون إنسان لأنه وعدت واحد كذا إنه عشوط بحسان ما نقص ماينا كل قاعدين عشوط بحين وضد منا يجيب لنا معايو للدنيا إحنا نتكلم كمان معايو واحد ويحيى بحسان ما نقص شغال ضد كني وهاي شغلوه تاعي وبكا واحد ليهاي وتكون عشرة بحية ودين كانوا على ضمينه وحي قبل ما نوحن سويننا وشاء رسوله الله ودين كيسي توصل وغسعه يقول لي إياها كوغا يعني محوها إياه ذلك حافظها بحي ودين صوبة قلتنا هو على ضمين دونا هدي لهاي هذا xubno ku haday magaca xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda ee maayarka ku wehelinaya kormeerkan uu degmada ku gaala bixinayay ayaa si wada jira ugu dheeraaday hawlgalka muuqda ee dawladda hoose ay hirgelisay muddadii koobneed ee xilka haysay gudoomiyaha degmada gacan libaax subeer salaan maxamed ayaa mas'uuliyiinta iyo maamulka dawladda hoose caasimadda uga mahadnaqday dadaalada muuqda ee ay hirgeliyeen yaasiin yuusuf faarax oo ku hadlayay isla markaana gudoomiyaha guddida horumarinta degmada gacan libaax ayaa iftiimiyay horumarka ballaaran ee ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya maamulka dawladda hoose magaalada Hargeysa gudoomiyaha golaha deegaanka caasimadda cabdiraxmaan solteelko ayaa dhagax dhigay jid wada oo degmadaas yeelan doonto oo ay iska kaashanayaan hirgelintiisa maamulka dawladda hoose oo kaashanaya dadka bulshada ku dhaqan degmada